burcad badeeda dadka lagu magacaabay sida ay marwacaasha sheegtayba waxay u badnaayeen markii ugu horeysay laba qaybood dadkii miyiga ka yimid waaga hore oo aan xirfada lahayn oo magaalada soo galay oo burcadda noqday burcadda isku bedelay ayagu waxay ka nigeen qaybta ugu weyn dadkii ciidamada markii hore ahaa oo ayaguna laftirkooda ahaa dadkii miyiga ka yimid ayaga laftirkooda waxay ka yihiin qayb weyn marka waxa weeyaan burcaddii dadkii shirkadaha lahaa oo shirkadahoodii burbureen ayaguna waxay ka yihiin qayb marka waxaa su-aasha meesha la isweydiin karaa waxay tahay dadkaas maxay soo kordhiyeen walaaley waxay tiri waa wiilal yaryar oo dulman laakiin waa run businesskoodii oo dhan baa burburay shaqadoodii ay aadi jireen oo dhan baa buray laakiin maxay soo kordhiyeen oo Soomaaliya ku soo kordhiyeen dhibaatooyin aan la qiyaasi karin bay soo kordhiyeen waxaan rabaa inaan dhibaatooyinkaas wax yar ka taabto waxaa kamid ah marka ugu horeysa ayaga faraha ka baxay waxay bilaabeen balwadaan caadi ahayn oo nooc walba isugu jirta waxa ay daaqada ka saareen dhammaan dhalinyaradii kale oo iskuulada dhigan jirtay gabdho iyo wiilal noocay rabaan ba ahaadaan dadii ay joogeen dadkii masaakiinta ah oo deganaa oo ka ganacsan jiray oo shaaha karsan jiray oo noloshooda iyo dhaqaalahooda ku tiirsanaa waxa ay soo kordhiyeen dhaqan xumo ah in gabdho la soo kireysto oo wadamo kale laga soo kireysto oo la keeno kuwaas oo la kireysto isbuuc laba isbuuc bil taasuna waxay keentay dhibaato ugu weyn oo ayaguna ay nagu soo kordhiyeen waxyaabaha kale oo la yaab kale oo aad runtii looga naxo waxa weeyaan daroogadii awal baan caadi ahayn wadankana farakul ku haysay ayay waxay sii bareen oo ku sii talaaleen dad fara badan oo aan hore u aqoonin waxa ay burburiyeen qoysas fara badan oo markii horeeto isqaday Puntland awood uma laha waxay ku gateen dhaqaale fara badan oo ay heleen oo international community ay ugu tala galeen inay siiyaan maxaa yeelay qofka ransom marka la siiyo macnaheedu waxa weey waad sii kobcisay waxa weey ransomkaas la siiyo wuxuu na gaarsiiyay in ay ku badan gataan inay dhaqaale badan muxuu ahaayay oo ay kasbadeen ay wadankii ku fasahaadiyaan taas waxay keentay marka in Puntland ka dagaalanto in ay dibadaha u qayl dhaamiso iyo adduunweynaha in ummadooda dhan u qayl dhaamiso sidii wax looga qaban lahaa laakiin nasiib darro waxa la yiraahdaa Puntland dhaqaale ka heshay Puntland muxuu ahaayay burcad badeeda ayada ah waxay kaloo noqotay Puntland muxuu hoyga burcad badeeda bay noqotay oo la isku qayl dhaamsado kii ka yimid muxuu ahaayay xeebta ugu shaysa iyo muxuu ahaayay xeebta ugu sokaysa intaba marka dhibaato weyn oo runtii aan la soo koobi karin ayaan ku qabnaa midda labaad waxa weeyaan hay'adaha caalamiga waxyaabaha aan ka filayno waxa kamid ah inay dadkaas rehabilitation ugu sameeyaan rehabilitation-ki aan ka sugaynana waxa ay noqotay in muxuu ahaa iyagana lagu sii kobciyo waxa kale ayagana dhibaato jira wadanka waxa uu dhaqaalihiis waxa uu ku xirnaa xoolaha nool buu ku xirnaa iyo kheyraadka dabiiciga kheyraadka dabiiciga waa midkaas muxuu ahaa burburay oo xataa qofkii daban jiray xoogaa kalluunka ka raadsan jiray badda loo yaqaan maanta waa burcad badeed oo la qabanayo miyigi waxa ku xoojin jira dhalinyaradii waxa weeyaan rag iyo dumar waxay soo galeen magaalooyinka baadiyi waxa ku haray islaamo waaweyn baa ku haray odayaal dhalinyarada markay magaalada soo galaan xirfad ma laha waxay ku shaqaystaan ma laha waxa kaliya ay bilaa waxay barteen balwad waxa kaliya ay sameeyaan waxay noqotay in ay dadka dhacaan oo waliba dhacooda uu yahay dhac bareer ah inay ku dhacaan gabdhaha waxa kaliya ay ka dhul bilaabaan waxa weeyaan markay miyiga ka yimaadaan inay furato wax la yiraahdo bush ama biibta furato biibtadaas waa meelaha ay ka bilaabato fusuqa ugu weyn iyo burburka qoysaska ay ka bilaabato waxaan idin sheegayaa tusaale yar gabadha bushkaas gadaysa bushka waxa sheega ka cabba ama fariista waxa weeyaan midka jaadka soo qaata ama ha soo shaxaado ama ha soo xado ama lacag uu sameeyna ku soo gato waxa uu saacado ku joogaa 12 saac in ka badan koobka shaaha uu ka gadanayo ayuu kor fadhiyaa aysan awood u lahayn inay tiraahdo meesha waa banadaya waa xiraya marka ay tiraahdo muxuu ahaa saacadii ay ugu dhamaatay wuxuu dhahaa waxaan reer baadiyaha yaa meesha keenay marka intay reer baadiya ka cararayso ayaa wax kasta laga dhameystaa halkaasna burbur baa ka yimid
xoolihii inta yartaa ku hartay waxa weeyaan dhir ay daaqaan ma haystaan oo dhirtii waxaa xaalufiyey dhalinyaradaas aan idiin sheegayo xirfad la-aanta ah ayaa waxay ka dhigeen mid ay nuurad ka shidaan iyo mid ay dhuxul ka shidaan dhulkii waagi hore la xirmeyn jiray oo muxuu ahaayey magaalooyinka laga fogaan jiro daaqsinta laga fogeyn jiray maadaama tabartii yaraatay oo waayeel xoolihii intii hartay la joogo reer walba waxa uu soo degay magaalada geeskeeda ama tuulo wuxuu ka samaysta meel waxaa xaalufay marka deegaankii la daaqi jiro xooluhu daaqi jiray marka abaaro badan ayaa yimid xaalufkaas dhacay dhulkii gaadiid baa yimid fara badan gaadiidkaasoo reemiyiga waagi hore waa lugeyn jiray hadda waxa weeyaan reemiyi lugeeyaa ma jiro mid walba baawur buu raacaa hadduu nin yahay waxa laba tilaabo u jirto ee deegaanku u socday galabtii markuu soo tagayna waxa weeye caagii caanaha ahaa haddii xoolo hareen uu kasoo lisay waxa weeyaan bariisna kuma gado cunana kuma gado caruurtana ma siiyo ma jinjaadu kusii gataa marka taas waxayna tusaysaa in dhinacii badda aanu ka burburnay dhinacii xoolaha iyo muxuu ahaayey aan ka burburnay dhinacii dhalinyaradii mustaqbalka noo ahayd oo berito muxuu ahayd mustaqbalkii dalka ayaguna inay burbureen oo noqdeen kuwa badda isku xoora iyo kuwa tahriib saxaaraha looga soo qabto marka waxaanu leenahay waxa weeyaan dadka Soomaaliya jooga way wacyigashan yihiin xaqiiqadiina way dareemeen laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan wali dibadiiba aan muxuu ahaayey aan wacyigashaneen waxaa ku qufulan 91dii dagaaladii dhacay baa ku qufulan dagaalada Soomaaliya ka socda dadka dibadda jooga horiya ama muxuu ahaayey dhiirigelin ku horiyaan iyo telefoon maxaa reer hebel muxuu ahaa idinka damcay ha ku yiraahdaan ama dhaqaalaha ku horiyaan taas waxaan idin ka codsanaynaa in aad muxuu ahaayey aad u dareentaan dhibta qodadeedu inta ay leeg tahay waxaan rabaa inaan marka wax yar u soo noqdo